odaya ayaa wiilkiisa 5 shay kula dardaarmay. tan koowaad waxa uu yiri wiilkaygiiyow iska ilaali in aad xaaskaaga sirtaada u sheegato. kan labaadna waxa uu yiri iska ilaali in aad la saaxiibto nin madax ah. kan saddexaadna waxa uu yiri iska ilaali inaad korsato ilmo aan nasab ahayn. kan afaraadna waxa uu yiri weligaa nin doqon ah gabadhaada ha u siin xoolo ayuu haystaa darteed. nin geesiyana gabadhaada ha ugu diidin cayr waaye oo xoolo ma haysto. inta aanan kuu soo gudbin qodobadan oo faahfaahsan muuqaalkan waa inaad leeg saartaa. hagaag waa dambe markii uu aabbihii dhintay ayuu wiilkii waxa uu damcay inuu tijaabo ku sameeyo qodobadaas oo aabbihiis u sheegay. 2 gabdhood oo u joogtay ayuu isla markiiba midna waxa uu u guuriyay nin doqon ahaa oo xoolo haystay, midna waxa uu u guuriyay nin geesiya oo aan waxba haysan. ninkii deegaanka uu deganaa madaxweynaha ka ahayna wuu la saaxiibay. sidoo kale ilmo yar oo meel laga soo helayna waa uu korsaday. halka marka ay marayso ayuu maalinkii dambe waxa uu soo xaday gaman yar oo uu lahaa ninka madaxweynaha ah. markaas buu meel ku xaraystay. saqdii dhexe habeenkii ayuu u yimid xaaskiisii isaga oo hilib wada. markaas buu ku yiri hilibkani waa gabantii madaxweynaha oo aan soo qalay qayb ka mid ah ee cun. waa ay cuntay kadibna way iska seexatay. subaxii markii la gaaray ayaa la waayay gabantii markii la waayay baadi goob ayaa loogu dhaqaaqay. wax la baadi goobaba waxa lagu yimid gurigii ay deganeed xaaskii ninkan gabanta xaday. markii la weydiiyay ee la yiri ma aragtay gaban noocaas ah. gabantu waxay noqon kartaa ama waa gaban ugaareed oo deera iyo wax noocaas ah ama waa gaban faras yar ayay noqon kartaa. markii intaas la yiri ma aragtay ayay ku tiri xalay ayuu hilib ii keenay ninkaygu waxa uuna lahaa waa gabantii madaxweynaha. intaa markii ay dhacday isla markiiba ninkii waa la soo qabtay. xabsi ayaa loo taxaabay. xabsigii markii loo taxaabay ayuu ninkii madaxweynaha waxa uu yiri ninkan waa in la toogtaa. waxaa loo qorsheeyay in la dilo. markii la geeyay geedkii toogta oo la rabo in la toogto ayaa waxa soo orday cunugii uu korsaday. markaas buu wuxuu yiri aniga hal igu daayo aniga ayaa dilayay. cunugii uu korsaday ayaa oranaya aniga ayaa dilayay hal igu daayo. la yaab maxaa sababay baa la yiri inaad disho ninkii ku soo koriyay. waxa uu yiri sababtoo ah ninkani waa uu ciilay oo ilmihiisa kale ayuu iga dhex ciilay. sidaa awgeed ayaan u doorbidayaa inaan dilo. halka marka ay marayso ayuu ku yiri fursad hal la isiiyo aan kula hadlo madaxweynaha. madaxweynihii baa loo geeyay. waxa uu yiri niyow miyaana saaxiib ahayn maxaad sidaan iigu gelaysaa. waxa uu ku yiri saaxiibtinimadu waa midda aad gurigayga u soo gashay gabantaydana aad u xaday. la yaab markaas buu yiri fursad isii aan ku noolaado. waxa uu yiri 2 qodob ayaa ku banaan oo kaliya. ama gabantii oo sideedii ah ayaad ii keenaysaa oo nool ama waxaad ii keenaysaa nin rag ah magtiis. wax ka dhaxeeya ma jiraan saaxiibtinimana ma jirto. intaa markii uu ka dhageystay ayuu yiri waqti isii aan magta ninka ragga kugu keeno. waa uu fasaxay. soo socday ayuu waxa uu yimid ninkii doqonka ahaa ee ka qabay gabadha oo 200 oo halaad ay u xareysan tahay. markaas buu yiri maanta waxaan u xiranahay 100 halaad oo geel ah. adiguna waad haysataa maanta ifurdaami oo madaxayga geedka ka fur. xeradii inta galay ayuu hal duqowday oo bari hore uu ka dhameystay u soo xariiriyay. markaas buu wuxuu yiri hashan tolka la gal waan ku bilaabayaa inta kale tolku ha ku badiyeen. waa uu ka soo tagay. waxa uu u yimid ninkii geesiga ahaa. markaas buu wuxuu ku yiri maanta waxaan u xiranahay 100 geela nin magtiis. haddaad ifurdaami kartay furdaami. ninkii geesiga ahaa isla markiiba tolkiisu ku laabtay. markaas buu ku yiri ama waan toloobayaa ama adeerkay qolka
ama geedka ah la igala furo. isla markiiba tolkiisii waxbay isku duuduween, geel koox ayay isku qoreen, 100 geela ayay soo xariiriyeen. isaga oo 100 geela xariirinaya ayuu u keenay odagii. markaas buu ku yiri, adeer waa kanaha 100kii geel ahaa. waxa uu yiri, halkaa ii hay, dib baan kaaga imaan doonaa. wuu soo baxay. markaas buu gabantii yarayd oo uu awalba meel ku xirtay si uu tijaabo ugu sameeyo oo uusan qalin, ayuu geedkii ka soo furtay. waa uu soo waday. markaas buu ninkii madaxweynaha u keenay. ninkii madaxweynaha marka u keenay buu yiri, gabantii waa tanaha, may fasixi kartaa? markaas buu yiri, waad fasaxan tahay. waa uu soo baxay. uu soo tegey. markaas buu waxa uu yimid ninkii doqonka ah ee gabadha ka qabay. gabadhii ayuu ka soo furtay. kadibna waa uu ka soo baxay. markaas buu waxa uu yimid ninkii geesiga ahaa oo geelii uu asagu ugu talagalay u celcelinaya si uu hadhowtii markuu soo laabto u dareersado. markaas buu wuxuu yiri, aniga geelan ma igu tala gashay? haa, aniguna adiga ayaan kugu milkiyey, gabadhayda iigu dhaq. markaas buu haddana ka soo tegey. wuxuu soo socdaba waxa uu u yimid wiilkii uu asagu korsaday. madaxa ayuu ka jaray. waa uu soo tegey. haddana xaaskiisibuu u yimid, ayadiina wuu dalaaqay. 5tii talo oo aabbihii uu siiyey ayuu sidaa tijaabadii u marsiiyey. tii koowaad waa xaaskaaga sirtaada ha la wadaagin. sirtii uu la wadaagay way ka fakartay oo way sheegtay. ilmagii uu yiri ha korsan waa uu korsaday. kadibna ilmagii waxa uuba rabay inuu asaga dilo. ninka doqonka ee xoolaha badan lahaa ee gabadhiisa uu siiyana markii uu u baahday ayuu ka heli waayey. ninka geesiga ahayna isaga oo waxba haysan ayuu 100 geela u soo xariiriyey. ninkii madaxda ahay madaxweynaha ahayna saaxiibtinimadii wuu gudan waayey. waxa uu ugu abaal guday in uu gaban yar neef yar dartii 100 halaad oo nin magtiis uu uga qaato ama u dilo. marka waxaan kuu sheegayaa, sideedaba talada waalidku ka tag maaha. haddii aad halkan ila soo gaartay, laygtu waajib ayay kugu tahay. sheer garay oo la wadaag saaxiibada. waad mahadsantahay.